رئيس الوزراء حكومة فدرالka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble oo uu weheliyay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa kormeeray habsami u socodka howlaha dekedda Kismaayo iyo qaybaha ay ka kooban tahay oo ay ka soconayeen shaqooyinka maalinlaha ah. Kormeerka ra'iisul wasaaruhu ku tagay dekedda ayaa daaranaa u korgelidda howlaha dekedda horumarada ka jira ee u baahan in la sii xoojiyo caqabadaha haysta. waxa uuna warbixino ku saabsan howlahaasi ka dhageystay madaxda dowlad goboleedka Jubbaland taasi oo qayb ka ah qorshaha xukuumadda ee horumarinta dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha dalka. wasiirka dekedaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwe Maryan Aweys Jaamac oo warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay in xukuumadda ay ku howlan tahay horumarinta iyo dib u habeynta dekedaha muhiimka ah ee dalka si loo soo nooleeyo kaalintii ay ka qaadan jireen dhaqaalaha dalka. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliyeed iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland iyo wafdigaba waxay kormeer ay ku gaareen dekedda Jubbaland oo runtii howlo muhiim ah ka socday. runtii ka xukuumad ahaan iyo dowladda Soomaaliyeedba waxaa ka go'an in ay ka shaqeeyaan horumarinta dekedaha dalka. dekedda Jubbaland runtii waxay qayb ay ka tahay dekedaha runtii dhinaca kobaca dhaqaalaha aad uga shaqeeya. anagana ka wasaarad ahaan waxay inaga go'an runtii inaan kala shaqeyno wasaaradda iyo baahiyaha ay soo gudbiyeen oo runtii muhiim ay tahay inaan ka qayb qaadano. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka magaalada Kismaayo.